السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa Royal TV xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho. daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan war wixii dal idaafaha caalamka naga soo gaaro idina socodsiin doonta aniga Sagal Yuusuf Xaaji Sagal Cudoon. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa shir gudoomiyay shirka tubta horumarinta arrimaha bulshada ay ku dhan yihiin wasaaradaha ka shaqeeyo guud ahaan xiriirka arrimaha bulshada waxaana looga hadlay ajandooyin muhiim ah oo hordhac u ah ajandooyin rabo in la geeyo golaha wasiirada insha Allah waxa horta wasaaradda gargaarka ayna siisay dulmar ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee wadanka maanta marayo inkastoo roob fara badan da'een alxamdulillah rabbil caalamiin haddana waxaa jirta in la leeyahay roobabka maadaama ay soo daaheen in ay sababi karto inay cunno yari ama sicir barar cunnada ku yimaado uu jiri karo marka arintaas ayaa wasaaradda ay si qeexan noogu soo bandhigtay oo aan la wadaagi doono hay'adaha iyo wasaaradaha kale ee qusayso si lisu daba dhigo waxaa kaloo laga hadlay arrimo ku saabsan dabagalka ay wasaaradaha rabo in lagu sameeyo rubaca labaad oo hadda dhamaaday junior ama quarter 2 dhamaaday isbuuca soo socda aan kan ku xigaba waxaa bilaaban doona isla xisaabtankii wasaaradaha oo wixii ka soo qabsamay rubici koowaad iyo rubici labaadba marka wasaaradaha waxaan rabnaa inay la socdaan in ay isoo diyaar garoobaan inay one-to-one-kaasi ama foolka wasaaraha uu qaban doono uu dhici doono kadib waxaa dulmar lagu sameeyay meelaha ay wasaaradaha joogaan iyo waxyaalaha loo baahan yahay inay cadeymo keenaan inay qabteen iyo in kaleeto intaas ayaa maanta looga hadlay waxaana shirka daadihinayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Mudane Mahdi Guuleed